دحدا والدنتا ما فهمتين marka waxaan niidin harraacina insha Allah bedelkiisana dib wax qayb qaba Ilaaha keeno marka ninka niidina dejista insha Allah duu Ilaahay yaraan tina baxisay guriga maxaa ka dhacaya tacsida baa loo fadhiyaa Soomaa gabadheedii ku soo dhawaaqay tacsida baa nagala soo qayb galay aad baan u faraxsanahay inaan ka soo qayb gasho horta waxay dhihin gabadheedii laakiin gurigan waxa ka dhacayaan baan u ka yaabanahay geerida baa loo fadhiyaa aabahay ma aha ninkaas aabahay ay dhihin waxa sameeyeen waa badidanaya inta kaliya yara oo la igu soo qabanaya baabay dhibase ay maxaa ka soo doontaa hadda soo dhiigi kuma waxa ka soo doonay si aan ninka u fiiriyade waxa ka sugantiin miisaatii سوينيسا ما حدا عايز horta baan aniga sida u soo ooyo oo hooyada la soo marsiisay sida caadiga maanta aad maraysid laakiin aniga maanta waan ku faraxsan oo ku raaxaysanayaa adiga ooyintaada ku raaxaysanayaa adigu waalanta hooyada aabaha ma ahniya qofka may na aabaha hadii horta mar hore dhiga xaraanta iska daadiyay dadkay ka daadiyay caadi iska dhig adiga ooyintaada ku jecelahay waa waxa kaliya aan raadinayay oo noloshayda ay soo dhigay joogna ما تعسيده وبكده حركة صعبة تعسيده وقت هذا بسوقيه نادي موالد محاجة خلنا صعوفة مرة مكر يا شيخ فرحين أنا مرة بيجي ورمنا كرو تعسيبها ناطة هلا أباها بعد يوم كاس أسيق علينا جعلين حتى أنا أدي ساق وأركع تام جعلين وحكي لي أنكو فرح سنة يبوا بيدينك مروكتي نبأ ألا محن راديني وقتي كانوا كلته محن وقتي كانوا كلته سوقي محن سوقي وقتي كانوا كلته قفل بوقتي يساوي لنا يا أوف والله ما أنت قلبك كقصلية حتى أفك حتى كم قصلية قلبك كقصلية ينيد مروجة ده كان زوج عاي ألا محن ما أنت بمل كانوا كل كرة حيسنا يا وفرحة ضيدة يديك مروجتينا مروجة عادية أتجلس ولي بعدية مروجة أتجلس وعني كفرحة ضيدة الله أديك محن شعلان شرينان محكا قلدنا هذه سو أبا ما قفك دنتي وروح بيجي ما قلدنا يلا حم هدي قري اللي هذا العادات كان عاد حشمينين واحد قري يكون احتاجنا تدا غلط أبى كبح قري أنا أنت مختار حقيقة صوفيرنا قري كبح واتكشر لين دون تبحثنا عمان تقولوا فطين كبحهم واتكشر لين دون تمد عمان تيجي واحد بس ما يصير أنا بقول عايز قري كصبح واتكشر لين دون تمام توح كلي أدي بس ما يصير يعني قصدي بعد شيء وضد كم تدي بعد شيء محاجر أمريرا قفتان محل واضح شلونه أو لو أمسين لو لا هدي لا يعني قفتان أمريرا وقتض قفتها يسكده وحن سمين إيفن هذا ضد قبته ما هذا إني سأوه هذا السوما قفك أنت والد كذا وقصب ما إني سأوه هذا شو هذيك يمكن وقت كذا أمستين سوما قفك أنت مرك والد كذا يمكن ننو وقت كذا أمستين قفك شبات كذا هذا سوما إذا النقطة هني صار حاجة في العالم أنا واحد سؤال دولة هوسة رافضها قاعد تقول هاي نواصب اللي أنا بنتي وقت فانتين عملنا هذا كلام رافضها من حكي سؤال دولة هوسة إذا كلام حتى حكي سؤال لا كم مرة وزيرك كان ولا لا أعرفه وقت فيرين كتوان مركا أورير صحيح هذا كويا أنا كيجي الله أنا صحيح مو صحيح أنا أنا واحد مستعين ساعة كلام بسم الله. عرفت واحد يقول لي معها كل صحيح هذا واحد ما السوق هذه وفيرنا بالورقة يا خالد والله ورقة لنا عادين ساعة أبو كاتي ورقة يسوي ونجينا ولا عن الحين أيضا هذا سوي عندنا لكن ما قول لي إنه قعنتو كذا الله ده نقول أنا صحيح هذا كويا هذا ما هي دولة بس خلط منهم يا كوسو ديوي
dantaada waraaqada kulligood marka walaal guriga anaga iskala anaga nolol kaga dhintay inta ka keentay adi waxaan qaylada yaree qaylo yaray ma aha caruuraad ka tahay meesha saddex maalin ayaad haystaa waana digniin saddex maalin aa sheegtay xataa 2 sano yaa naga saar anaga guriga anaga u dhawana anaga iskala waalidkeena iskale saxiixan ma aha saddex maalin ayaad ugu badatay yaa ma gurina anaga saacadooyinka soo socda haddaad ka bixi weysiin inqaab ayaa la kulmaysaa maxaan ka baxayna mala guriga anaga sweetheart inqaabaa la kulmaysaa maxaa ka qaldan nasiib waraaqada saddex maalin ayaa jaanis siiyey ilaa hadda hadal ma maqlayaan maana u socono gurigana kama baxin anaga abeen markuu dhinto miyaa sida rabti naga yeelanaysaa saxiixan anaga ma lihin malihin walaa kii hooyadayguna ahay walaa kayguna oo ahay haddaba dawladdaad ka bay sheegaysaa qalad kale ayaad galaysaa waxaa lagu qaadi karaa qodobka 300 is ilaali waayahay hadday gurigeeni uuna ahayna tuuganimo ku qaadanaysin waa la arki doonaa saxiix baa cadeynayo saxiixan anaga ma lihin ma jirto maraa saxiixan ka tahay meeshan ka aamus min fadlag saddex maalin aan ku siiyey hay u kalifin inaan ilbirqsi kaaga dhigo waanaad ka bixaysaa nagama dhigi kadida ka waran ma baxayno gurigana kama baxayno anaga meel aan u socono malaha waxaan idiin sheegaa saacadda soo socota waa inaad guriga firaaqaysiin hadday ismaqal jisto meel aan u socono malaha anaga gurigana kama baxayno waa ku dhima karaa hadday saa tahay ugu socda malaha waddo kale ayaan ku jeexay taasoo wadada alla wadada artikaan ma baxay aniga walaal diyaar way ku dheh walaal adiga maxaa kaasi adiga hawreer dee ninkan wax sharciya jira waraaqada saxiixaada saaran markii qasab waaye inaan ani warqada ma saxiixin hada saxiixaada saaran saxiixaada saaran taasna ada isweydiinaya qofkii ka intuu kiis kale saxiixaada haddana kiis meel kale uu tegi lahaa marka waxaa danta noo qasbaysa dhib ma laha anagaa samrayna nakeena soo ay u kalfinana waddo kale alla ma guriga ka guuraya oo asaada wax walba og miyaanada guri ka baxa saxiixa saaran anaga saxiixan ma aha saxiixan inuu koobiya hata macquul okay dawladda ma ka soo horjeesanaa arrinta halaawdo way halaawi arrinta walaal fiiri dhageyso adiga meeshan qof weynaata hawreer maxaa ku daaray mas-uul waxa aqoon le meeshan adaa ku jeeda iska daa waddo kale anaa walaal diyaara waddo kale diyaar waay nakeena marka intuu kiiska ma iyo walaalkay imaada sug walaal walaaqtinimadaada ma naqaan naga deg wariya adiga maxaa kugu dhacay ma qabaynin madan miya iga raali noqo dadkan wax walba u sheega laakiin hadal ma maqlayaan way madax adiga fiiri aniga soo kuma dhihin wadada saddexaad isticmaal haddii mataqaana ay war keenaan saa waxu jiraan firaaqaha guriga hadalka badan iga yareeye aan idinka nasto oo abti adi kaan walaalkay maxaan walaaqtinimada aad sheegaysid maxaa waaye ha meesha ganacsi ayaa yaala iyo lacag ganacsiga lacagta maxay lacagtu walaal ma laha wejin ma laha ilan aabahay markuu noolaaba nooga dhuuma jireen war aniga waxaan kuu sheegaa Waji malid abtina mati. warqadan waji mari abtina mati ma walaasha wasaa u galaysaa oo guriga saarsa ayada asaysa u saaran tahay war fiiri niyahow wadada saddexaad ma isticmaashay mase niyahow abuukaatay ama qof adagaan qabsada aniga wad maqlaysiin shaqadeeda ha ku dheelina sharafteedana hoos gurigan ka bixi mayno walaal kiiskan waxaa u baxay 1.5 bilyan aan baxay ma fahantin firaaqaha maya ani shaakaan fahmin aw kaanta raasanayna anaga dhib ma laha maya taas hay dambayso adiga walaalkay ma aniga ma walaalkaa ah wiilkan iyaga hortaa ku jirtaa min fadlak ninkaan aniga ma walaalkaa aqaani aniga awal badanaan ka lahay danteedu ay lacagta waanan helay ma fahmay adiga yaa tahay marka isku keeshay foradi ganjaale ma baxay horta isku keeshay adiga qofka tahay aniga waxa ahay inaa ogaato looma baahno waa u baahanay sababta guriga waraaqadiisa iska ka abti adiga waji mari walaasha asay u saaran tahay sida waji mareedii sida waraaqada jeexan doona sida taasi awood ma lihid waa wallahi awood xabsiga ku dilaysaa qaraada qofka maxaa ka khaldan Allah hada hawada saa ku dhiin iga fu soo deg horta soo istaag dhulka bal qofka dhan ee khiyaanada guriga igu wada waa ninkan ka war aa jir walaalkayga waa waryaa feri hadalka badan yaan laygu badinin aniga waxaan jooga xilligii aan nasalahay kuwaas ma waraaqadaha sheegayso ha ayaga dhan waa jarjara waan war toban koobigeeda toban originaal maxamed way geliyey toban ah kuwaan jarjar hadda yartaan abtigay maxamed walaalkay abtigay mana ahaan haye ana qof kale waraaqada ma saxiixin feri aabaha dhimashadiisa aniga abtigaa ma yihi markaas ayaan soo xasuusta warqadaha dhan ninka saxiixana waa ninka meeshan wax baa la isku qasaya feri waryaa hooyo abtigeenba hooyo abtigeenba hadduu sidaas sameeyey walaalkayna uu saxiixa naga qaaday hooyo hadduuba mar abtigeen yahay qofka sidaas noo galay war meesha nooma yaalo waaban waa inaan waraaqsanahay tagnaanin wax yar iga raali hada walaashay haye maxay aniga walaalka maxamed ayaan ahay maxamed ka
maxamedka adig kula dhashay yaa ninkan ayaa dhibka dhan ka dambeeyey wax yaraan rabaa inaan kula socodsiiyo ninkan ayaa dhibka dhan ka dambeeyey aniga magaalka maanan kala aqoonin inuu adiga walaalkaa yahay ayuu ku qoraabo jiray laakiin walaalkaaga saxdaa kula dhashay aniga waaye ilaa haddana waa yaabana ninkayga markuu dhintay meel walaal meel guri mar waraaqad war maxaa se wax qaldan yihiin managa mintu ninkaan dhibanaa bismaa sugayseen hooyo kana ma abtiba ma walaalkaaba kan waa hooyo waa wax keliya aan ku wareer markuu aabaha dhintay waraaqad baa imaato guriga waana laga saaray walaalkii waa been wix dhan waa been hooyo marba hadduu abti saas kuu galay oo adiga walaalkaaga way meeshan joogis ma lahan anaga ilaahay baa wax walbana siinaya gurigana waa inaa isaga baxnaa waayo waxaa laga yaabaa inay dhibaato noogu imaato anagana garab ma haysano waa ogtahay sheekadan ani sheeko kale ayay iga dhex ifaysada ninkayga waxaan maleyn inuu dhiman uu gaalo shil gelin waan yaabanahay aniga waqtigan ha nagu dhamaynina waryaha adiga noo cogso qodobkii 7 maxaa dhacay maxay waqtiga nooga dhamaynayaan naga cun dadka niyaho adiga waayahay mudane inigana okaadi hal mar sheekada aan dhamaystireen walaal waqtigaan ugu socdo dilkiina wixiina maxkamad ayaa jirto abukaato qabsada min fadlag waqtigaan ugu socdo dadka cleaner sheekada la hagaajiyo loo baahan yahay waxay tahay sheekada oo keliya rabaa inaad dhamaystirto marka xir iyo dulqaado okay you have a few minutes okay waa mahadsantahay mudan adiga mudan waxa waaye sheekadan anaga dhibkan dhan anaa ka dambeeyey iga raalli ahaa walaashay waxa waaye ninkaan ana kasii dambeeyey dhibkaas oo aniga dhibkaan dhan igu kalifay hooyaday ayuu afduubtay hooyaday markuu afduubtana waxaan sameeyey aniga waraaqadahan saxiixan iladii si qayaano laha layga qaaday marka waraaqadahan anaa ka dambeeyey inaan dhiibo intaas ku doora iga raalli ahaada tan labaad waxay tahay ninkan waxa waaye waxaan kuu sheegaa walaashay ninkan ninkaaga ayaa dhalay maxaa dhacday wixii dhacay ayaan kuu sheegay oo ninkan wuxuu ku ahay ayaan kuu sheegay hadalkaas aniga igu beer jilicsanay iga soo baxa guriga hantidan aniga ayaa iskale waan ku raaxaysanayaa habril ninkaan waad ujeediina naga keena habar gurigeena saa ugu tagnaa gurigeena muhiimadaha saa ugu tagnaa gurigiina ka min fadlag gurigiina sharciga idinga saaray ma fahamtay sharci la adiga sharci ma dhihi karti qayaano waay waxaas hey yalla diyaar baxa naga baxa qayaano iyo sharci anaga kuga kala teeda kale shaqaan yahay haddii gurigaa nadiifinaysa aniga waan soo noqon gurigeygana anaa iska waa qaadan dalan waay taas sii waraaqadaha shaqada ugu wanaagsaneed noloshaada maanta ayaad qabatay midaasi waa ogtahay dee wixii dhiidhib inaan kasoo baxayo farxisada dhankeeda kama delo war adiga aniga weydii lacag waxaad waxaan malaynaa shaqada horta waxaan malaynaa shaqada shaqadaad maasha allah waad ka soo baxday marka waxa waaye waa inaan kala qaybsanaa waryaha hantidan waa aniga xoolihii aabbahay ma fahme aabbahay ayaa u dilo qabri ugu jiro yaa soo gacan gelin hantidan ani soo gacan kula imaanin waxba maqle saxiixana yaa bixiyey haddaysan iman iman lehed wiilow dhegayso gacanteeda kuma qabatee isku day inaa xishooto marka ixsaan waxaan kugu samaynayaa gurigaan sida gurigaan oo kale u noolow oo shaqaalo ka aho maanta laga bilaabo maya ha isku dayin sidaadaba qayaano ayaa tahay qayaano weligeed aniga mataqaanaa aniga le ma aamino waxna ma aamino ma fahme gacanteedana gacan kama dambayso iska ilaali gacanteedana mataqaanaa ayaysan ku gaarin maantoo kale waxaan sugaya muddo dheer mana rab in lagaga ciyaaro niyahow nolosha sida ay tahay ugu nolow haddii kale gacanteeda saddexaad waa taqaanaa ma gambato gadaalna uma noqoto xoolahan aabbahay ayaan u dilay mana ka kaftamayo xoolahan mataqaanaa saan ugu raaxaysto darteed ayaan caawa aabbahay mataqaanaa qabriga aan u geliyay mana doonayo inuu qof kale isoo hor istaago igulana xisaabtamo xoolahan qofka isku dayaana waxaan ballan uga qaaday inaan nolosha dhaafiyo